fadhiga ay saaka yeesheen xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland mudane Salabaan Maxamuud Aadan ayaa waxay kaga hadleen colaad dhex martay laba beelood oo walaala oo diriir ku dhex martay gobolka Sool. Gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland mudane Salabaan Maxamuud Aadan ayaa warbixin ka dhageystay guddi hore ugu saaray colaadda ka dhacday deegaankaasi waxaana kamid ah hadaladoodii حسن عمر نور ربا dhaawacayna waa jireen galikii dambeena jid baale dagaal baa ka dhacay halka laba nin baa ku dhintay dhaawaca ima tira koobna laakiin dhimashadu waxa weeyaan saddex galikii hore dhintay iyo saddex galikii dambe dhintay waa lixdan nin saan warka ku hayo nin waxa lagu yiri ciidamada ayuu ku baxay iyagoo markay wax kala dhex galeen ayuu ku baxay jaacsi ay baa lagu yiri xagga hore saddex noo jaacsi ay ku dhintay galikii dambe jid baa laba nin oo naleexda ku dhintay lixdan nin baa dhimasho la sheegay gudoomiye dhaawaca sideed waa la sheegay xalay nin baa ugu yiri dhaawacii garowe la geeyay nin baa dhintay naleeya Axmeda ciidamadii baa kala dhex galay shalay iyo ilaa xalay wax dambe ma dhicin gurmad kale oo u tagay oo ama dawladda ama shacabihina ma jirin geeridu waa 6 dhaawaca lascanood yaalana waa 8 waxa kale oo iyana xumaatay arintii ari cadeeyay loo fadhiyay fiqisin iyo reer cilmi oo raggan dhintay reer cilmi waa ku jira reer jibriil waa ku jira dhaawacana way ku jiraan muhiimaddu waxa weeyaan 6 caanamaal bay mala maraysaa imika nabadii ari cadeeyay loo fadhiyay raggii fadhiyay reer cilmina way dhaqaaqeen oo yara ragga nabadii hore fiqisnay u fadhiyay ka kacay weeyaan sida uu ku sheegayay ragga buuhood la ka yimid garaadada nabadda u wardayna gaara la dhacayo iyo waa jaban yihiin mid baa jaban Xamse Maxamed Muuse Cawke Real TV Hargeysa waar saaxib maxaad noo kicisay riyo wanaagsan baan ku riyooday shirkadii Telesom oo soo kordhisay adeeg la yiraahdo kaafiye oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso kumaad riyoon ee waa run hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland tayo waa Telesom